bismillaah kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago istiraatiijiyadii ahayd Power strategy iyo sidoo kale intood manipulationka qaabka la iskaga ilaaliyo. Sida wada ogsoonahay suuqan hadda waa 5 minute chart. Sida wada ogsoonahay suuqan hadda waa down trend ama waa sell side ama haddii aan Soomaali aan ku fasirno waxa waa suuq jihadiisu ay tahay dhanka iyo hoos waay. halkan horizontal line ka black uu inoo saaran yahay waa meesha uu kasoo bilowdo suuqa waa low high low high low meeshan u dambeysa xariiqinta falaarta ee taalo waxaa lahaa clean lows waa suuq meeshii u dambeysay oo liquidity ah uu imaado soo marka suuqan jihada uu u jihaysan doono waxay noqon doontaa dhanka iyo uptrend maxaa yeelay suuqu waxa uu soo taabtay clean lowski sida wada ogsoonahay halkan marka inta aanan trade ka qaadan waan fiiriyay waxaan dhigtay horizontal line aan dhigtay horizontal line kan aan dhigtay waxaan sugay in la ii soo jibiyo oo uu soo jibiyo hal candle ku xigo oo banaanka imaado candleka saddexaad aan soo qaato markaas aan u qaato dhanka iyo uptrend laakiin meeshaan ma ka qaadan inteen ka qaatay waxaan ka qaatay 1 minute aan ka qaatay hadda ayaan idin tusi doonaa sida uu xaalku noqday sidaan u jeedno waxaa la soo jabsaday horizontal line-kii halkan waa M1 laakiin kuwa waxaan kasoo analyze gareeyay suuqa oo aan analyze-kayga aan kasoo sameeyey chartiga M5 markaan dhahay waxaa waaye waa 5 minute halkan markaa imaaday suuqii waa uu soo jabsaday clean lowskii broken clean lows sa ujeedaan halkaas baan ku qoray sidoo kale intood candleska soo jabsaday waa kuwaana markaa candlekii koowaad iyo candlekii labaad falaara iskula qabtay waxaan dhahay these two candles broken waxay soo jabsadeen horizontal line-kii ayay soo jabsadeen waxaan qaatay marka candlekii saddexaad markii la soo jabiyey kadib ama waxaan u qaatay dhanka iyo uptrend boom aan halkan ku qoray Power strategy but it was bad entry halkan waxay ahayd bad entry ay ahayd sababtuna wax kale maahan internetka oo aad u cuslaa ee waxa uu iga geliyay entrygan sida wada ogsoonahay suuqa waxaa la rabaa inaad ka qaadatid candlekan markuu hoos u soo dhaco candlekan hoos buu u soo dhacayaa hoos markuu u soo dhaco ayaa la rabaa inaad u qaadatid dhanka ay uptrend laakiin haddana sida u jeednaba waan weyn gareynay haddaba marka maxaan ku weyn gareeyay suuqan waxa uu rabaa manipulation inuu sameeyo manipulationkii uu sameynayay ayaan waxaan u qaatay dhanka ay uptrend maxaa yeelay suuqu waa ujeedaa wuxuu na siiyey 1 2 3 4 candle oo green ah na siiyey soo marka 4 candleskan markii uu na siiyo kadib suuqu wuu soo laabanaa si uu u buuxiyo khasaarahan uu isku furay hoos uu soo laabanaa hoos markuu uu soo laabto kadib ayuu wuxuu aadi doonaa dhanka ay uptrend ayuu aadi doonaa maxaa yeelay voidkan ayuu rabaa inuu soo buuxiyo sida wada ogsoonahay candlekan cagaarka oo bullish engulfing ah candleka ka dambeeya oo redka ah waxa uu leeyahay rejectionskaas waxaa imaaday sellerskan hadda retracementiga ah hadda marka suuqu wuxuu dib u bilaabay inuu dhanka ay uptrend uu aado marka sidaas suuqa u analyze garaysid ayaad fahmi kartaa jihada suuqa ayaad analyze garay kartaa soo marka waxaan u qaadanay dhanka ay uptrend waaynu guuleysanay haddaba marka adiga maxaa lagaaga baahan yahay waxaa la rabaa every note aan sheego inaad meel ku qoratid haddii aad rabtid qaladaadkaaga mar walba waxaa la rabaa inay ku noqdaan cashir ha degdegin hana ku fikirin macnaha lacag inaad samaysid number 1 ku fikir in adiga aad samaysid aqoontan aad baratid waxaan taxliilintooda aad baratid waxaa idin rajeynaa horumar iyo baraare